الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxa fadli weyn inagu leh oo iyagana ay tahay inaynu barano darsigeena maanta uu ku saabsan yahay saxaabada rasuulka Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam markii la soo diray dad baa markiiba rumeeyay oo garab istaagay oo garab iyo gaashaan u noqday oo naftoodii iyo maalkoodii iyo dadaalkoodii iyo fikirkoodii iyo waqtigoodiiba ku bixiyay siday diinta u difaaci lahaayeen iyo si nabiga u difaaci lahaayeen runtii dadkaasi marka nabi maxamed laga yimaado waa dadka ilaahay nagu anfacay waa kuwii soo jihaaday ee jihaadka galay waa kuwii waxa weeyaan maalkoodii bixiyay waa kuwii dhulkoodii ka tegay ka hijrooday iyagoo diintooda la baxsanaya waa kuwa cilmiga ina soo gaarsiiyay haday tahay quraanka iyo haday tahay xadiiska iyo haday tahay fasiraadooda labadaba waa dad ilaahay karaameeyay saxaabada waxa saxaabi loogu tilmaamay saxaabi waxa la yiraahdaa malaqiya nabiga sallallahu alayhi wasallam mu'minan wa ma ta'ala al-islam saxaabi waxa la yiraahdaa qofka nabiga la kulmay alayhi salatu wasalaam isagoo mu'min ah hayn dhaqaba mayu dhaqami bee qof nabiga la kulmay oo mu'min ah oo islaamnimadiina ku dhintay oo hadduu dib uga noqdo diintii inkastoo ay taasi iskaba yarayd istixaabi noqon maayo saxaabadu ilaahay baa quraanka dhexdiisa ku ammaanay saynu ognahay alla wuxuu yidhi muxamedun rasuulullah waladiina macahu ashiddaau cala alkufaari ruxamaau baynahum nebi maxamed waa rasuulkii ilaahay kuwa isaga la jira saxaabadiisa ahayna ashiddaau cala alkufaar gaalada way ku adag yihiin oo ma imtixaan walow qaraabadooda waxa noqdaan mar haday diintii ilaahay khilaafeen ruxamaau baynahum laakiin iyaga dhexdooda markay noqoto waa dad isku naxariisanaya amba isku turaya way waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala laqad radiyallahu 'ala al-mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara ilaahay mu'miniinta raalibu ka noqday waqtiga heshiiska kugu la galayeen geedka hoostiisa waa qisadii sulhul hudaybiyah 1500 wax ku dhowayaan saxaabadu ilaahay baa ka raali noqday والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ilaahay aayad fara badan buu saxaabada ku amaanay qaar kood ba marka si gaar ah hatta aayad ugu soo degeen markaynu doonayno inaynu diinta barano markaynu doonayno inaynu dadka wanaagsanaa jeclaano dadka u horeeya intay inaynu jeclaano waa iyaga saxaabada dad baa ku xadgudbay oo qaar kood waabay la dagaalameen oo way dileen masaynu ognahay Ali ibn Abi Talib oo kale Uthman bin Affan iyo saxaabo kale Zubayr ibn Awami Talha bin Ubaydillah qaar koodna waabay caayaan oo iflagaadeen sida nimanka shiicada la yiraahdo kale oo Abu Bakar iyo Umar iyo waxa ka sheegaya iyagoo waliba islaamkii ku andacoonayeen muslimiin baan arrinkan aan waxba ka jirin islaamnimadooda maadaama ay aayadkii quraanka beeninayaan ee amaanaya saxaabada ee saaw amaanay saxaabadu ilaahay ba ku tilmaamay inay yihiin من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إلهي سبحانه وتعالى وحده من المؤمنين الرجال مؤمنين ترقبا كمدها صدقوا ما عاهدوا الله عليه وحي كرن شيئا وحي إلهي سبحانه وتعالى كلاب اللمين إن يدمن دوران إلهي درتو دفاع دوران دينتا وقت قادوا كبحين دوران قار كودبا مركز سيديكو شهيدي فمنهم من قضى نحبه وحا كمدها مد يسوي هوشي سيقوتوك جيريودي ومنهم من ينتظر مد سوغيا با كميدا وإسنا aan wali wama badalu tabdila aan ballankii ay qaadeen ka bixin dadkaasi dhamaantood ahlul cadaalad bay ahaayeen saxaabada rag iyo dumarba horana umay dhicin dibna u dhici mayso dad lamid yihiin ee adduunyada soo maraan sida culimadu tilmaameen xataa ambiyadii nabi maxamed ka horeysay qolooyinkii raacay saxaabadooda ahaa heerka ay saxaabadu gaareen may gaadhin inagoo kalena inaguna weligan gaadhi mayno laakiin almar'u ma'a man ahabba yawm alqiyaama qof cidda uu jecel yahay maalinta qiyaamada la jooga waxaan arkaynaa maanta dhalinyarteennii iyo da'yarteennii oo gaaladii ilaahay quraanka inoogu sheegay sidii cadow yihiin inay qaldan yihiin oo wada qaldan ay hayaan ayay dhalinyarteennii ku foogan yihiin inay isku ekeysiyaan laakiin dhalinyarteenu hadday akhlaaqiyadka diinta bartaan oo gaar ahaan saxaabadii taariikh nololeedkoodii ay bartaan wax badan bay faa'iideen maxaa yeelay qofka bani aadamka waxa ku abuuran baa la yiraahdaa
inuu cidun ku daydo qof keligii meel iska joogaa ma jiro al-insaanu madaniyun bitabcihi bay dhahaan qodaa carabta qofka insaanka bani aadamku waa qof madaniya macnaa dad la dhaqan leh asalkiisa oo keligii meel ma istaagi karo marka qofkan haddaad aragto sidan arkayra ku dhegan xidhanaya ama sidan kale samaynaya dee cidun buu kaga dayday haddaba qofku hadduu u baahan yahay cidun ku daydo ilaahay baa subxaana watacaala ina amray inay nebi maxamed iyo saxaabadiisa ku dayna dadkaa wanaagsan oo nebi maxamed alayhi salatu wasalam wuxuu yidhi iqtaduu biladayni min bacdi labada iga dambeeya ku dayda abibakar wa cumar abubakar iyo cumar bal rasuulku xadiiskii macruufka waa ka yidhi calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa arraashidiin haddaad doonaysa xataa sida wax loo maamulo dadka imika siyaasadda iyo waxa u heelan ogow cumar bin khadaab wuxuu ka talinayay daraf ilaa daraf adduunyada isagoon jaamacad siyaasadeed ka soo bixin haddana siduu wuxu maamulayay oo weliba tashiilaad badan iyo waxyaalo badan oo imika facility badan oo la haysto aanay jirin waqtigaas diyaaradana aanay jirin laamiyana aanay jirin baaburna aanay jirin isgaarsiina aanay jirin haddana deyra ma hirdiyeynin dad la yaab laba heer ummadaasi gaaladii baaba ka markhaati kacay oo yaabay markay arkeen saxaabada iyo siiradoodii dadkaas siiradooda waa lagu raaxaystaa waxaanu qofku ka helaa wax loo yaqaano shaxdul himam in hamigiisu uu soofaysmo oo qofkii diintii uu jeclaado ayuu ka helaya runtii waxay ahaayeen dad aad u la yaab badan taariikhdooduna wax lasoo koobi kara maaha laakiin insha allahu duruusteennan waxaynu ku qaadan doonaa bal taariikhdoodka qaar ka mida iyaga haddaynu soo qaadano ka u horeeya abubakar asidiiq radi allahu canh qof kastoo innaka inaga mid uu garanaya abubakar asidiiq magaciisa waxaa la odhan jiray cabdullaah binu cuthmaan oo isna saxaabi ahaa radi allahu canhuma labadooda ilaah raalli ka noqday abubakar aabihina saxaabi buu noqday uu islaamay abu quxaafa ayuu kunyadiisu ahaa oo ku caanbaxay abubakar buu ku caanbaxay laakiin magaciisu cabdullaahi waa abubakar rasuulka calayhi salaatu salaam 2 sano iyo wax yar buu ka yaraa waaba intuu ka dambeeyey uun xagga geeridana waxau ahaa qurayshtuu ka tirsanaa banu taym ayuu ka mid ahaa waxa ay sii xigeen saxaabigii loodhan jiray dalxa bin cubaydillaah ee ka mid ahaa 10kii jannada loogu bishaareeyey rasuulka awowga 6aad ama 5aad bay ku kulmayaan ama ma kala foga waxau ahaa nin ilaahay akhlaaq ku galladaystay caqli ku galladaystay dhaqan wanaag ku galladaystay isagoo markaa jaahiligii noolaa waqtigaan rasuulka la soo dirinba khamrina muu cabin akhlaaqaad xumed kalena muu samayn wuxuu khamriga markaan arkay iyagoo khamrigu dee si caadi u ahaa wax xaaran ka dhigayaba aanu jirin oo iska cabi jireen san shaaha inu cabinoo kale haddana wuxuu markaan arkay say qofkii u bedelaysay akhlaaqdiisa waan iska daayay buuri waxa uu ahaa saaxiibka nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulka saaxiibkii uu ahaa waqtigii hore markii dambe rasuulka la soo dirayna hadal kamuu horkeenin markuu rasuulku yidhi nabiga ilaahay iga dhigo aayaadkaas igu soo dejiyey markiiba uu qaatay abubakar wuxuu ahaa nin qaniya oo maalqabeena maalkiisii wuu bixiyey diinta ilaahay koruqaadideedu ku bixiyey taana nebi maxamed baa ka markhaati kacay wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa nafacanii maalu abi bakr maalimu anficin intuu i anfacay maalka abi bakr rasuulku aad buu abubakar u weyneyn jiray oo u ixtiraami jiray abubakarna rasuulka weligii maalina kamuu maqnaan isla markaana waxa weeye goobihii iyo dagaalkii iyo jihaadkii iyo hijradii intaba markaa uu la joogay ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku yidhi waladii jaaa bisidqi wasadaqa bihi ulaa'ika hum almuttaquun waladii jaaa bisidq ka runta la yimid ee xaqa la yimid oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wasadaqa bihi ay waladii sadaqa bihi iyo kii rumeeyey oo lagu fasiray inuu yahay abubakar sida ibnu jariir atabari iyo culimo kale mufasiriin ay tilmaamaya marka ilaahay labadoodaba u ammaanay muttaqiinna yihiin buu sheegay abubakar waa saxaabiga ilaahay qur-aankiisa ku yidhi ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أبو بكر عجيب حكويه وصحابي قال قلت المهم القرآن كان يحدث إنه يهي نبي صاحبك وإلا يقول النبي محمد إلا تنصروه يعني إن لم تنصروه حديدا النبي أوجر جارين فقد نصره الله إلهي وأوجر جار عيد أوجر جار توي ما إلهي وأوجر جارين إلهي وحوجر جاري وقتي أي جود كوتشرين يجوا الله بكليه oo gaaladii ay soo dul istaageen raadinaysay lagu yidhi 100 geela lagu siinay haddaad soo sheegtaan maxamed iyo abubakar ama midkood baad sheegtaan amba aad dishaanba amba warkooda baad keentaan ay godka soo dul istaageen
sida xadiiska saxiixa ku sugan godkii nabigu ku jiray calayhi salaatu wasalaam oo dhinaca koonfureed ee magaalada Maka ahayd ayay soo dul istaageen wuxuu ku yidhi Abubakar rasuul Allah hadduu midkood hoos lugihiisuun u eego wayna arkaya rasuulku wuxuu ku yidhi ya Abubakar ma danuka bithnayni Allahu thalithuhuma bal maxaad u malaysaa Abubakarow laba ilaahay saddexeeyo ilaahay baa markaa u gargaaray marka Abubakar quraanka hadda lagu sheegay sifooyinkiisa aayaadka qaarkood inuu sheegnay waxa kamid ah وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب العالمين آيات كاسو waxay culimo badan leeyihiin mufasiriinta kamid yihiin waxay ku soo degeen Abu Bakr ayay ku soo degeen oo Abu Bakr maalkiisa wuxuu ku xoreeyay saxaabadii adoomada ahaa ee iska daciifka ahaa ee la dhibaateynayay sida Bilaal iyo rag kale oo lamid ah iyo dumar dabeetana aabihii Abu Quhaafa waqtiga aan muslim ahayn ayaa markuu arkay Abu Bakr oo kolba adoon xoreynaya waxa uu ku yiri aabo maad rag xoog ku difaacaad xoreyst inta aad markaa waxa weeyaan dumarkan iyo dadkan iska jilicsan dabeetana rasuul waxa uu ku yiri markaa Abu Bakr aabihii wuxuu ku yiri anigu waxaan doonayaa un ilaahay wajigiisa inay waxay qabtaan ma doonayo marka ilaahay waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala wali illa ibtigha wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda maalkiisa wuxuu bixinayay soo ilaahay wajigiisa doonayo jeer damuu raali noqon doona qof uu markaa wax ku lahaay u celinayo abaal u celinayo ma jirtaa Abu Bakr maalka uu bixinayo adoomada ku xoreynaya sadaqada kale u bixinayaba ilaahay wajigiisa doonaya ilaahayna subhanahu wa ta'ala maalinta qiyaamo ka raali noqon doona Abu Bakr wuxuu cajiib ku yahay wuxuu kamid yahay 10kii jannada lagu bishaareeyay bal waa kii koobaad oo fadliga badan aqeedada ahlus sunnah wal jamaa waxay tahay in Abu Bakr uu yahay ka fadli badan ummadan marka laga yimaado Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam Ali ibn Abi Talib wuxuu sida xadiiska saxiixa ku sugan أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ومضى وحا وفضل بدل نبي هذا كدين أبو بكر يا عمر رسولك عليه الصلاة والسلام حديث بدن أبو بكر كو أماني باجرته وحا ويري رسولك عليه الصلاة والسلام ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا هدان أمضى إذن خليل كدقنا يوم mar kasta aan ka fikiro oo jacaylkiisu uu saa ii madax maray Abu Bakr baan ka dhigan lahaa laakiin Ilaahay baa aniga khaliil ka dhigtay marka Abu Bakr rasuulku uu jeclaa oo maxaba saxaabada ka dhaxaysay laakiin khaliil waxay u gaar ahayd Ilaahay subhanahu wa ta'ala sifadaasi oo inuu rasuulku leeyahay Abu Bakr rasuulku alayhi salaatu wasalaam markii uu xanuunsanayay isaga ayuu ku yiri dadka tuki dabeetana marka Abu Bakr uu tukiyay oo taasina waxay daliil u tahay inuu sii ishaarayay haddii rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu geeriyoodo cidda madaxtinimada qabanaysa ee mas'uuliyadda ummadda qabanaysa inuu yahay Abu Bakr as-Siddiq waxay ilaahay sabab uga dhigay inay islaamaan raggii 10kii jannada lagu bishaaray qaar badan oo kamid ah markii rasuulku alayhi salaatu wasalaam loo sheegay markuu rasuulku u sheegay Abu Bakr diintii qaatay markiiba uu dhaqaajiyay rag badan oo ay kamid yihiin markaa Zubayr ibn Awaam iyo Uthman bin Affan iyo ragaas ay ku jiraan ayuu Abu Bakr sabab u noqday Abu Bakr dagaalna kama harin jihaadna kama harin qisaskiisu runtii aad bay u dheer yihiin waxa kamid ah Abu Bakr aayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan in Abu Bakr waxa dhacday horta qisadaas waa sugantay iyadoo sida saxiixa ku sugan Aisha ayaa laga been sheegay siin ognahay munaafiqiin weynaa loo jiray Abdullah ibn Ubay ibn Salul iyo kooxdiisii baa ka been sheegay oo yiri xumaamay samaysay iyadoo taasina been tahay Ilaahay baana bari yeelay oo Quraanka ku bari yeelay Aisha oo aan qaadan doona insha Allah siradeeda wax kamid ah marka waxa jirtay nin loo jiray Mistah ibn Uthatha radiyallahu anhu oo saxaabi ah Abu Bakr ay qaraabo ahaayeen Abu Bakrna uu xisiin jiray Abu Bakr markaa uu dhaartay markii Ilaahay uu bari yeelay Aisha Mistahna waxa dadkii hadalka ka qayb qaatay isagoo hadalka ma sameyn laakiin dadkii muslimiinta ee wanaagsanaa hadalka aan iska hubsanay hadalka faafiyay waxa marka Abu Bakr dhaar wuxuu ku maray inaanu Mistah wax damba siinin maadaama Aisha isagoo been sheegay dabeetana Ilaahay baa soo dejiyay wala ya'tal ulul fadli minkum wasa'a an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum yey ka dhaaranin kuwa Ilaahay maalka uu siiyay iyo ballaadnida xagga risqiga inay siiyaan dadka qaraabada iyo masaakiinta iyo muhaajiriinta fi sabilillah
hana iska cafiin walyacfu walyasbixu walaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum miydaan jecelayn ilahay inuu idin dambi dhaafo idinkuba dambaabisa abubakar wuxuu ihi balaa wallaahi uxibu an yakfir allahu lii wallaahi waan jecelahay ilahay inuu idin dambi dhaafo runtii siirada abubakar aad bay u dheer tahay waxaanay ka buuxdaa akhlaaqad wanaag cibaado iyo alla kacabsi darsigeenan maanta insha allah halkaasuu ku joogi doonaa darsiga dambe ayaynu halkaa kasii wadi doonaa insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullah